dowladda hoose ee degmada Garadaga oo ku taagan dhabaha higsiga fog ee tartanka loogu jiro Garadag bilicsan oo dhan kasta ka horumarta ayay saaka mas'uuliyiinta dowladda hoose ee degmada Garadaga waxay laba god oo hore xaafado kamida degmadu qashinka ugu guri jirtay isla iminkana korarka magaaladu ku soo dhawaaday iyagoo taa bedelkeedana qoday isla saakaba laba god oo masaafo magaalada laga durkiyay iyadoo laga duulayo nadaafadda iyo bilicda degmada Garadaga sidii kor loogu qaadi lahaa mustaqbalka dhowna indhaha bulshadu u arki lahaayeen Garadag qurxoon oo horumar badan oo aan la hagrani ka muuqdo xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada Garadaga Cabdicasiis Ismaaciil Aadan iyo xildhibaan Mustafa Salebaan Cali ahna gudoomiyaha arrimaha bulshada ayaa howlgalladan kor loogu qaadayo bilicda iyo nadaafadda degmada Garadaga goob joog ahaa iyagoo halkaasina warbaahinta kula hadlay sidoo kalena fariimo isbarkan u diray bulsho weynta reer Garadaga iyadoo ay tahay subax jimco ah haddana kamaanan baaqsan inaanu ku guda jirno howlahii sunnaha u ahaa dowladda hoose waxaanu saaka bilownay godadkii qashinka oo laga fulinayo laba goobood oo loo asteeyay dowladda hoose hore ugu asteysay godad hore oo qashin waa jireen waxa buuxsamay macnaheedu cabirkii loogu talagalay magaaladiina way soo gaadhay sidaa darteed annagoo ka shaqaynayna fayadhowrka iyo ilaalinta bulshada waxaan u sameeyay qashinku meel buu leeyahay meeshaas hadhow lagu gubi karaa laga qaadi karaa u khaas ah waxaana jiraysa ganaax ciddii lagu arko iyadoo u isticmaalaysa qashinka meelo iyagu ay ugu tala galeen oo dee isaga gaara haddii aan iyagu nadaafinayn nadaafadooda dee ama hadhow aanay qaadayn oo amaanay halkaa ku gubayn waxaanu jecel lahay si isku mida oo si feera oo waxaan ku yidhi cid waliba aan u eegnay in qof waliba soo gaadho jirta suuqyada maraysa oo dowladda hoose leedahay oo cashuur doonaya qashinka inay ka qaado dadka marka cashuurta qashinka la weydiiyo yaanay u aragtay dad la hagardaamaynayo waa inay arkaan weeye wax qabadka loogu qabanayo dadweynaha qashinka laga qaadayo marka la yiraahdo cashuurtii keena yaanay dhib u arag cashuurta ha saako ay tahay subax jimca 3 bishii 6 waxaanu joognaa xaafadda Maqashe ee magaalada Garadag halkaas oo aanu ka fulinayno ama ka hirgelinayno god qashin godka qashinka oo godkii hore qashinku magaalada ku dhawaaday sidaa daraadeed dabadeedna ay noqotay in laga durkiyo annagoo ka duulayna laba qodob oo mid koobaad mas'uuliyadda iyo waajibaadkiina saarnaa ka gol ahaan iyo dowlad hoose ahaanba oo ay ka mid tahay bilicda iyo fayadhowrka magaalooyinka ay degmada xukunto iyo mas'uuliyadaha nasaaran oo aan gudoonayno inta soo dhanba waxaanu godka qashinka halka maanta uga fulinay si nadaafadii iyo badqabkii dadkii iyo wada noolaanshihii degmada iyo bulshada ku noolba ay u badbaadi lahaayeen annagoo intaas oo dhan ka duulayna waxaanu sameynay god qashinkii magaalada aanu ka durkinay bulshada reer Garadag ama xaafadaha ku dhowna waxaanu u sheegaynaa insha Allah taala inay godka qashinka loo sameeyay ay ku asteeyaan oo halka loogu talagalay qashinka geeyaan bulshada inta saan loo wadaagaynaa halkan markaa fariin ku baranaya bulshada reer Garadag bulshada xaafadda fariinta u baranaya halka qashinka laga jiray hore waa aragtaan waa laga bedelay waxaan ugu baaqaynaa bulshada reer Garadag halkaana insha Allah wixii dambe ka halay xalxalan nadaafadda baynu ugu ballanaa maalin baa loo soo astaynayaa maalinta insha Allah inaynu ka wada qayb qaadanayno rajaynaynaa inta ka bacdi dadka dambe ee la qodo waxaan sheegnaa bulshada eeriyada ku xaafadda inay ilaaliyaan nadaafadeeda qofkii halka godka meelaha qashinka dhigana inay soo wajiyaan qaybo kamida waxgaradka iyo odayaasha degmadaasi ayaana dhankooda ka marxaati kacay waxqabadka miradhalkiisii la arko ee ay wado dowladda hoose ee degmada Garadaga halkan waxa ka socota hawl ay fulinayso dowladda hoose ama golaha deegaanka ee Garadag ay fulinayaan iyagoo qashinkii
gumburi xaafadda maja maqasho dhexdeeda qaadaya oo ku hawlan oo hawshooda wada ayaanu dadkii deganaa xaafadda waxaanu ku taageeraynaa kuna soo dhawaynaynaa uguna hambalyaynanaa uguna ducaynaynaa sidaa hagartala golaha deegaanka ee sida wanaagsan u qabanaya oo qabadkoodu muuqdo aan garashada lahayn ayaa aad iyo aad u qodobnaa ilaahay waa qabtay maxamed gumburi telefishinka caalamiga bulsho TV Garadag